tirsan shirkadda On Passive. soo dhawaada walaalaha ka midaysan ee shirkadda On Passive, walaalaha Soomaaliyeed ee ka tirsan shirkadda On Passive. subax wanaagsan xaggayga, waa maalin sabtiya, subax sabtiya waaye. magacayga waa Cabdi Cali Sow. dhammaan walaalaha Soomaaliyeed ee halkan ku jira waa salaamayaa, saa u dhantihiin. runtii wax badan ma idin sheegayo, recapkii wuu noo soo socdaa kulley. walaashayna Nafisa noo joogta insha Allah. aniga wax rabaa wax yar inaan ku daro oo daba socda maaragtay hadalkii Sahra Cumar ahay. qofku waa inuu jawaabka gacmaha kala baxaa. jawaabka inuu gacmaha kala baxo runtii waxa laga wadaa waa inaad tahay qof u diyaar markay ganacsigan aad ku jirto shirkaddan On Passive oo aan ognahay mustaqbalkeeda inuu maaragtay runtii aad iyo aad u soo nuurayo. xafiiska ugu sarreeya adduunka, sarta ugu sarreeya ayaad waxaad ku leedahay shati. qof markaa heerkaas ka jooga magaciisa meeshaas ku qoran yahay, war ganacsigaagu halkuu ku diiwaan gashan yahay. wuxuu ku diiwaan gashan yahay magaalada Islii, wuxuu ku diiwaan gashan yahay Bakaaraha. ganacsigan kaaga wuxuu ku diiwaan gashan yahay oo laga leeyahay sarta ugu dheer adduunka, Burj Khalifa waaye xafiiskaaga. NDA-ga asaxiixayso waxaas. marka jeebka gacmaha lagala baxo macnaheedu waxa waaye waa inta yare lagaa rabo oo ay Sahra sheegaysay inaad noqoto qof horteedaba u diyaar ah. waxaan ayuu prepare. wax waa kala nooc qofna waxa waaye waa marketer, qofna waxa waaye qof hamile, qofna waxa waaye qof raba maaragtay inuu hadii u jeedo guusha u muuqato oo u soo socota. marka waa inaad u diyaar garowdaa. haddii beritoole wax aadan u diyaar ahayn oo ay si lama filaan kugu dhacaan, runtii shoogay kugu dhaqanaysaa. On Passive noloshaada runtii wax badan ka bedelaya. midda kaleeton ku daraya waxay tahay aaladaha aan isticmaalayno oo mobilada iyo telefoonada iyo laptop whatever ay yihiin. xalayto markuu Ash hadlayay wuxuu ka sheekeynayay inuu Mati Degamo yiri set garee oo connectigay. Mati wuxuu yiri waa ii shaqeey waaye. Ash wuxuu yiri anaa furo wuu shaqeeyay. macnaheeda marka maxaa iga qaldan? waxaan arkaa commentayaal walaalaha qaarkood dhahay maxaa iga qaldan, maxaa ka qaldan, maxuu u shaqeey la'yahay, iima soo gelayo. waxaa laga yaabaa waxyaabo yaryar oo aan macno lahayn oo qofku inuu isagu maskaxdiisa isticmaalo ay tahay, ama uu isagu is-howlgeliyo oo maaragtay uu tallaabooyin ku daro wax uun meelo taabto. qof wax ku dhashay male. waxaan dhanaa ujeedo anaga waa nagu wada cusub yihiin, laakiin waa taabanaa, meel walbaan ka riixnaa. waa keenaysaa marka dambe haddii aad taabato meel yaro farta dhag a ku siinayso. waxaa laga yaabaa inaad aragto batankii playga oo meeshii batankii oo laga ciyaarayo oo laga shidayo video. hadda la taabato waxaa laga yaabaa inaad aragto batankii mute-ka looga qaadayo. laakiin haddaa inta iska riixda linkiga aad taleefanka iska fiirsato adigoon saan dhihin, adigoon dhinaca kale u gedin, waatuu dhahaya saan u gedi, dhinaca kale u gedi, saan u gedi. maxnaa wax uun samee si maaragtay wuxuu u shaqeeyaan. laakiin oo connecte maalinba maalinta ka dambaysa sida aad u jeediin wuxuu soo noqonayaa wax cajiiba. saana wuu kasii darayaa markii artificial intelligence-ga lagu soo daayo oo uu noqdo maaragtay mid howlo kaleeto zaaid lagu daro. marka walaalayaal taasu waa taas. waxaa kaloon ku darayaa emailada idin ah back-upka. horena dhowr jeer aan usoo sheegna walaalaha founderska ah long time uga soo digaynay. ganacsigan sidiisaba shatigiisu waa email. hebel iyo heblaayo hebel qof taqaana ma jirto. Cabdi Cali Sow qof taqaana ma jirto. waxa lagugu yaqaanaa oo aqoonsigaagu yahay waa meelkaaga. oo meel aan leenahay oo aan ku galnaa ecosystemkeena oo cusub, weli ab ahaan uma soo bixin oo way soo socotaa. heerkii aan uga maarmayna alternative email lama gaarin. intii ka sokayso gmailka alternative-ka ku ah oo wax lagu soo diraayo, code-ka lagu soo diraayo, lacag kale ma bixi kartid dhowto waladkaaga. haddii oo mailkii passwordkiisa ay hilmaanto, resetkii la soo diraayo oo aad passwordka isaga bedeli lahayd, waxa lagu soo dirayaa linkigii gmailka lagu soo dirayaa. marka haddii taleefanku kaa dhumo ama lagaa xado ama lagaa jabsado, waa inaad haysataa siyaabooyin kala duwan oo aad recovery ku samaysan karto. qof baa laga yaabaa inuu gmailka markuu samaysanayo taleefon uu geliyey, taleefon Soomaaliya uu geliyey 2526, waa ka haajira wadankii, wuxuu aaday meel kaleeto. taleefonkii laftii waa ka tegey. hadhowto markuu gmailkii soo ka imaago, codekii waxa lagu dirayaa numberkii Soomaaliya ugu soo tegey. sidaa daraaddeed numberka waxa ka fiican inaad 2-3 gmail aad leedahay oo aad isku xirtid.
iyaga la isku xiraa gmail abdialisow.com.gmail waxaan ku xirayaa onpassive.com macnaha iyaga isku xirxiraysa markaad mid ka soo kacisay midka kaleeto oo ka furi kartaa waa important taleefanada in laga ilaashado caruurta lagu dheelsiinayo markii caruurta lagu dheelsiinayo oo dhowto markii ganacsigan oo kala kaco oo aad hunted noqoto ugaarsadaha ashba farax afkiisu ka sheegay wuxuu you be the hunted waxa waaye qofka la ugaarsanayo ayaad noqonaysaa macnaheedu xumaan ma aha ugaarsashadu ma aha in maaragtay mid dagaal ah ma aha ugaarsashadu waxa weeyaan iyadoo laga masiirsan yahay horumarkaaga iyadoo laga masiirsan yahay faa'iidada gacanta kugu jirta iyo sida aad u aragtay aragtidan fog mar hore oo aad tahay dadka oo hormuudka u ah oo bilowga ah oo dhowrka boqol oo kun oo qof oo horeeyo oo shirkadan madaxa la galay inta aan millions of people aysan arkin aad tahay horumarkaaga oo muuqdo dad badan ayaa ku soo abaaraya anka dhaxgala dadku waxay dhayeen live ku cod male mar recordingka u soo ma soo si kale okay raal noqo hala fiirshabal insha Allah waan arkay gudoomiye markaan Nafisa la hadlayo waan noo record gareynayaa ku soco insha Allah waa ciladaynu aragnay midkeeda marka ganacsigu malaha ganacsigaanu malaha magacaaga waa inaad gmail-kaaga lagu yaqaana marka waa inaad maadaama ay lagu soo hujuumi doono lagu ugaarsan doono waa inaad ka ilaashataa taleefanada xogta kugu jirto inaad ka ilaalisaa inaad meel walba ku tuurto ma ah taleefan meel walba iska yaala oo aan password lahayn canuga guriga joogaa hoo yimaadaba oo soo qabanayo linkiya lagu soo diraa linkiga oo spamaha lagu soo diraa waa iska riixa markuu linkigii qofka riixo jaadaasid xogtaada oo saasaa lagu wareegay magacaagii detailskaaga emailkaaga on passive waxa u keentay dhibaato oo haddii dee niman iskamarisa ay on passive dhex galaan wax kaloo badan ay sii awoodi karaan adiga dhibaato isu keentay marka hortaasna waa ka digayaa oo horena waa ugu soo digna laakiin walaalo cusub maadaama ayna la joogaan emailku waa inuu noqdaa email sakuur ah oo xataa taleefankaaga maanta haddii adigoo inta cidlaa meel cidla lagugu tuuro oo bayaan lagugu tuuro ee taleefon lagu horkeeno ama mobile lagu horkeeno waa inaad si indhahaagu xiran aad passwordkaaga iyo emailkaagii aad geli kartaa maskaxda kor ka xasuusataa meel kuugu qoran yahay wax walbaa dhici karo taasuna waa taas waxaa kaleeto aan ku darayaa runtii rikaabka Nafisa noo soo wado laakiin maalinba maalinta ka dambaysa oo Ashraf Mufarax afkiisa kala furo oo hadlo waxa sii cadaanaysa oo noo xaqiiqsanaysa on passive waxaan kugu jirnaa guul waa 100% guul ilaahay xaqiisa ayaan ka rajeeynaa laakiin bini'aadamka iyo asiga iyo annagaba iyo waxa la sameeynayo iyo xawligooda shaki kuma jiro in maaragtay lagu guuleysanayo ujeedaduna ay tahay maaragtay inuusan on passive iyo dadaalka iyo rafaadka iyo dhidka ay marayaan uma marayaan inay iyagu jeebka wax ku shubtaan waxay u marayaan inay adiga ku siiyaan total freedom xorriyadda buuxda inay ku siiyaan xorriyadda lacagta xorriyadda waqtiga faraxdo horumar gaarto waa war cad waa shaki kuma jiro asiga afkiisa kala habeen hore afkiisa kala uma dadaalayno uma rafaadayno uma dhibaatoonayno in aan anagu waxaan dhan aan magac ka helno oo aan ka helno maaragtay fame name fame iyo maaragtay naga soo gaaray iyo financial fame ama maaragtay taajirnimo ama magac yaal ama maaragtay caan inaan ku noqono uma sameynayno waxaan u sameynaynaa inaan idinka aan maaragtay ceejada idinka fujino marka taasuna waa taas boqolkiiba waxaa loo baahan yahay sabar waxaa loo baahan yahay niyadsan waxaa loo baahan yahay inaad wax ka barato ganacsigaaga wax ka barata maxaan ka wadaa muhiimaddu waxay tahay the ecosystem on passive ecosystem ayaa wuxuuba yahayba hadda waxa taalo 5-6 product yaa taalo oo meel ma dirtaa oo need wax ma ku qortaa ma akhrisaa blogska ma akhrisaa waa ina ogaataa suuqaas aad ku dhex jirto hadda suuqa bakaaraho kale ka soo qaad meeqa dukaana ku taal meeqa ganacsiyo kale nooca ku taal hadda adiga dukaan ku leedahay waxaa laga rabaa in dukaamada kale dhan dariskaaga ina ogaatid qof walba wuxuu gadaayo maxaa maanta suuqa ka jiro xasaasi maxaa gadmaayo maxaa suuq leh maxaa macduunaho beriga aan la haynin maxaa la soo wadaa
saad ka daba maxaa xiisa noqdon all these things waxaasoo dhan waxa waaye on passive ecosystem oo meel shatigiisa iyo password aad leedahay waa inaad isku daydaa inaad boqolkiiba boqol xooga saartaa sida aad uga dhex bixi lahayd meel walbo taabto users ha noqoto contacts ha noqoto affiliate ha noqoto macnaheeda favorite ha noqoto marketplace ha noqoto all these things waxyaabaha meelaha laga taabto dhan ma jibinaysid ma ku ciyaaraysid ha ka cabsanin af Soomaali u bedel af Soomaali inkastoo iska qalabsan yahay haddana tarjunkiisa haddana it doesn't matter waa la qabsahe waa barahe gedgedi ku dadaal marka soo dhawaada walaalayaal waqtigeeda ka qaadi maayo muddaan ku jirnaa qaar Allah idin siiyo we are excited and we are in it to win it and we will succeed inshallah dhulkeena iyo dadkeena wax badan u qabanaynaa we are the future millionaires inshallah welcome